السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحدان kanaalkeena Sumada Dhalinyarta soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadlaynaa sidee shahaado luqad English ku heli kartaa shahaadadaas oo la aqoonsan yahay adigoo gurigaaga jooga EFSET ama English First Set waxa weeye waa imtixaan loogu talagalay dadka non-native speakers-ka dadkaan luqadda ku hadlin imtixaankaasi markaad gasho waxa aad helaysaa shahaado ka turjumaysa heerkaad Englishka ee ka gaarsiisantahay haddaba haddaynu warbixin yar oo kooban ka bixinay imtixaankaas sida shaashada inaga muuqata imtixaanku waxa ku kooban yahay qayb akhris iyo qayb dhageysiya qaybta waxa horeyso qodobka labaad oo ah waxaad ku bilaabi doontaa qaybta akhriska oo iyadoo 25 daqiiqo ka kooban qaybta dhageysiina oo 25 daqiiqo ka kooban tahay xeershiis waxa kamid ah marka aad next ku dhufato dib uma soo noqon karto ku dhufo shaashada inaga muuqata halkan ku dhufo meesha ay ku qoran tahay kadib waxa uu nageeyay imtixaankii mowqiciisii linkigiisii saxda ahaa kadib markuu waxa keenay waxa inoo sheegay imtixaanka in wax fee ama wax lacag aanan jirin waad tijaabin kartaa hadaad start 15 minutes quite school photo adiga tijaabin kara yani imtixaanka intaan gelin waayo hoos aynu soo soconno saynu imtixaanka u galno waxaynu ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay get EFSET certificate markaynu ku dhufanno isaga ayaa si toos ah inoo geynaya qaybta labaad markuu ina keenay qaybtii labaad waxa ka inaga muuqatay in imtixaanku yahay 50 minutes 50 daqiiqo waxaanu sheegayaa certificate kanaad qaadan karto profile-kaaga inaad hagaajisan karto kadib waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay start now hoose kadib waxaan noo saarayaa kaad ma Facebook kale ama Google aan ka galay Google aad ku dhufan account-yadaadii buu ku saarayaa kadib account-iga aad rabto ayaad ku xariirsani inta kadib waxa uu si toos ah inoo keenayaa goobtii imtixaanka lagu galay kadib waxayna keenay qaybtii imtixaanka sida saxda lagu galay ka bilaabay imtixaanku information yar ka horeeya jiro konta daqiiqo intaas yahay iyadana wuu soo saaray insha Allah kadib waxa ku dhufanaysaa start 50 minute EFSET marka inta ku dhufato si toos ah imtixaankii kugu bilaabaya waad ka shaqeynaysaa qaybta koowaad waa akhris waan ishay qaybta labaadna waa dhageystaas kadib marka imtixaanka ka faraxalaatay oo dhamayso waxaad dib u boqotaa gmail-kaagii message box soo gaari certificate-kii iyo shahaadadiina waa ku soo diray inaha baan ku soo koobayna aad baad mahadsantihiin dhamaantiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.